warbixintana waxaa maanta ku qaada dhigi doona jilaaga ku dhawaadka 20 sano ku jira filim jilista Hindiya soona qaata guul iyo guuldaraba ninka lagu yeero Chocolate Boy ee Shahid Kapoor maqaam sarna ka gaara aflaamta. Jilaagan ay hadda xaasla ah heestana 2 carruur gabar iyo wiil ah wuxuuna guursaday gabar ay waalidiinteeda ay u dooqeen oo aan ahayn. Hadda warbixintana waxaan ku eegi doonaa jilaagan ee markay isdaba kaceen guuldarooyinka hadalada uu jeediyay inuu ku qanacsan yahay filim jilista ayaan ku eegi doonaa warbixintan. Waxaan filaa jiliinka waa sida nolosha oo kale waxayna ahaan kartaa wax aad ugu qanci karto marka qaarna kugu noqon kara khibrad xanuun badan, laakiin waan jecelahay waxaan ahay qof dareen xoog leh una leh sidoo kale filimada aan sameynayo. waxaan ahay qof si hoos u wada dareen dabcan waxaa jiri kara rabitaan aad gaarayso sidoo kalena ay tahay rabitaankayga. rixida oo motorkiisa ku kaco waa rabitaankayga. filitaanka dhinacayga waxaan filaa inaan aqaanin meel uu ku dhamaado iyo rabitaanka inaan dib u arko nafsadeeda oo aan sameeyo wax cusub film walba gudihiisa. rabitaanka aan rabo inaan sameeyo doorkaasi uusan ugu riixaynin qaab ama dheel heer sare ah ama inaan sameeyo door cusub aan suurtagal ahayn inaan kediyo daawadayaasha, inaan sameeyo wax walba waxyaabo kala duwan iyo inaan ahaado qof geesi ah iyo awood leh kana cabsan dhibinada, taas oo ku imaada rabitaan ah inaan noqdo geesi. waxaan ahay jilaa u eg inay ka adkaadeen sheeyaalo. waxaan gaaray ilaa nafsadeeda aan weydiiyo su'aalo badan ka hor inta aanan sameynin film. marka qaarna marka film aan sameynayo laakiin muhiim ahaan waxaan u baahanahay inaan dhageysto dareenkayga. taasi ma xiiso gelinaysaa ma siin kara hal sano oo nolosheeda oo ma ii furi doontaa fursadooyin lagu deeqo oo aan sameeyo waxyaabo aan hore u sameynin ama inay noqdaan wax aan rabi doono inaan u aado daawasho. aad bay u qurux badan tahay, u fududahay ayna tahay. waxaan aaminsanahay sida aad u sahashato ay u ficnaanayaan. Kadigaani ayaa sidaasi yiri waraysi uu bixiyay in noloshiisa maroo kaga hadlay guuldarooyinka soo gaaray. haddaba haddii aad ka heshay fadlan la wadaag asxaabtaada warbixintan.